بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواada wararka ciyaaraha fadlan sub sharaab saar jambadaasha fursiyaad ku heshaan muuqaal baaso jil kusoo dhawaada wararka ciyaaraha ee caawa UEFA oo maamulka horyaalada Yurub u soo bandhigtay 4 wado oo lagu dhameystiri karo xilli ciyaareedyada Wijnaldum oo sharaxay sababta oo Liverpool ugu qaatay lambarka 5aad Jamie Carragher oo magacaabay shaxdiisa ugu fiican Premier League xilli ciyaareedkan iyo Ronaldinho oo doortay shaxdiisa waalida ee riyada xilli uu xabsiga ku jiro kusoo dhawaada warkii oo dhameystiran madaxweynaha xidhiidhka kubadda cagta Yurub ee Alexander ayaa soo bandhigay 4 wado oo lagu dhameystiri karo horyaalada ugu waaweyn qaaradda Yurub kadib markii uu xanuunka coronavirus joojiyay horyaaladaas dhammaan horyaalada kubadda cagta Yurub ayaa la joojiyay kadib markii uu xanuunka coronavirus ka dilaacay Yurub iyo adduunka sababna u noqday in la joojiyo horyaalada ilaa waqti aan la garanayn madaxweynaha xidhiidhka kubadda cagta Yurub oo wareysi siinay wargeyska Le Republic ayaa sheegay 4 wado oo lagu dhameystiri karo horyaalada Yurub kadib xanuunka coronavirus ma garan karo waqtiga ay dhibaatadan dhamaan doonto sidaa darteed waqti uma qaban karno waqtiga ay kulamada soo laaban karaan laakiin waxaa jira 4 wado oo lagu dhameystiri karo xilli ciyaareedkan waxa ugu horeeya in la bilaabo horyaalada bartamaha bisha May ama bartamaha bisha June ama dhamaadka bisha July haddii aan lagu guuleysan in la joojiyo xanuunka coronavirus waxaa horteena yaala in inta dhiman xilli ciyaareedka la dhameystiro bilowga xilli ciyaareedka dambe marka laga hadlayo kubadda cagta sidii caadiga ah lambarka 5aad waxaa xirto xidigaha daafaca dhexe kaas oo ah xidig difaaca kooxdiisa kana hor istaaga weerarka laakiin xidiga qadka dhexe ee uga ciyaara kooxda Liverpool ee Wijnaldum ayaa xirta lambarka 5aad inkasta uu yahay xidig qad dhexe oo weerarka ah xidiga reer Holland ee Wijnaldum ayaa sharaxay sababta uu u xirtay amba Liverpool ugu qaatay lambarka 5aad xidiga qadka dhexe ee Wijnaldum ayaa bogiisa Instagram ku sharaxay sababta ka dambaysa inuu isagu xirto lambarka 5aad mar walba waxa uu yahay mid khaas ah aniga waxa uu ahaa lambar nasiib leh markii aan da'yarka ahaa sidoo kale Zinedine Zidane oo ah xidig aan taageeri jiray ilaa yaranteedii ayaa soo xirtay lambarka 5aad halyeeyga kooxda Liverpool ee Jamie Carragher ayaa magacaabay shaxdiisa ugu fiican ilaa haatan horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan kuna soo daray 7 xidig oo kooxda Liverpool ah laakiin ka reebay xidigaha reer Brazil ee Alisson Becker, Fabinho iyo Roberto Firmino daaficii hore ee Reds ayaa kooxdiisii hore ka soo doortay 7 xidig xilli ay Reds 25 dhibcood ku hogaaminayso horyaalka Premier League dhanka daafaca Jamie Carragher ayaa ka soo doortay dhammaan kooxda Liverpool laakiin ka reebay goolaha Alisson inkastoo uu xilli ciyaareedkan ilaashaday 10 kulan shabaqiisa waxa uu goolahayo u magacaabay goolaha kooxda Sheffield United ee Dean Henderson kaas oo wacdaro dhigay xilli ciyaareedkan sidoo kale waxa uu weerarka ku bilaabay xidigaha Mohamed Salah iyo Sadio Mane halka uu Manchester City ka magacaabay xidiga Kevin De Bruyne iyo Sergio Aguero xidiga Aston Villa ee Jack Grealish ayaa sidoo kale qadka dhexe ku bilowday shaxda Jamie Carragher halyeeyga reer Brazil ee Ronaldinho ayaa da'diisa 40 jirka ugu dabaaldegay xabsiga kadib markii lagu helay dambi ah inuu dalka Paraguay ku galay baasaboor bug ah sanadihii uu ciyaaray kubadda cagta Ronaldinho ayaa ku soo raaxaystay waqti fiican oo garoonka dhexdiisa ah isagoo oo ku soo guuleystay koobab aad u badan Ronaldinho ayaa soo xushay shaxdiisa ugu fiican xidigii uu ku hortagay iyo waliba kuwa uu ka soo garab ciyaaray inta uu ciyaarayay kubadda cagta xidiga 40 jirka ayaa isku darin shaxda laakiin soo xushay shax adag oo u qalantay ku guuleysiga Champions League xilli hadii ay wada galaan garoonka shaxda ayay ku jiraan 4 xidig oo reer Brazil ah halka ay ku jiraan 2 xidig oo u soo ciyaaray kooxda Chelsea 3 xidig oo u soo ciyaartay kooxda Chelsea halka sidoo kale ku jiraan xidigo kale oo badan hadda waxa uu Ronaldinho ku soo bilaabay goosha Buffon halka 4 difaac oo ciyaarsiiyay Cafu, Maldini, Terry iyo Roberto Carlos qadka dhexe waxa uu soo qaatay Frank Lampard, Makelele iyo Kaká Messi, Henry iyo Cristiano Ronaldo wararka ciyaaraha intaas bil u tacaaba hada muuqaalka tiish dilektar share asxaabta